السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وبركاته داودياشا قيمها هي قدرتي كمدن يدمان عبدالله كحران channel كينا عبد البشير نتورك كسونا ولا داوديال برشة اللغة الإنجليزية وأنا قاعد بشير على موسى وعشر كيني اللغة إن شاء الله تعالى عشر كيني الريوح نكسو على داوديال حروف اللغة الإنجليزية تصير بنكسو قادني لقى بلعب إلا يسك إنسو قادني sidoo kale waxaan soo qaadanay qaybaha ay u qaybsato xuruufta Ingiriisiga oo kala ah laba qaybood inay kala yihiin qaar loo yaqaan consonant letters iyo qaar loo yaqaan vowel letters. haddaba xuruufta loo yaqaan consonant letters waxaan ku soo tilmaamay inay yihiin xuruufta shiibanayaasha kuwa vowel letters loo yaqaan inay yihiin xuruufta shaqalada waan soo qaadanay dhammaantood. xuruufta shaqaladii waxay ahaayeen shan xaraf oo kaliya ama vowel isku shan bihayeen consonant letters waxay ahaayeen 26 ka xaraf ee luqadda Ingiriisiga ka koobnay daawadayaal. haddaba daawadayaal casharkan maanta waxaan ku qaadan doonaa insha Allah taala xuruufta Ingiriisiga ayaynu kolba mid soo qaadan doonaa insha Allah taala oo markaa tusaalayaal ka qaadan doonaa insha Allah examples. haddaba examples ka ama tusaalayaashan qaadan doonaa waxaan ku bilaabi doonaa xarafka ugu horeeya luqadda Ingiriisiga oo ah maxay a. haddaba ereyga ugu horeeya oo erey ka kacaya luqadda Ingiriisiga ee ka kacaya ayaynu insha Allah taala soo qaadan doonaa tusaale. ereygaas wuxuu noqon doonaa kan halkan idinka muuqda. waxaa loo akhriyayaa ant af Soomaali ahaan waxaa noqonaysaa quraanjo ant quraanjo waayahay ant quraanjo. tusaalaha labaad ee soo qaadanayna daawadayaal wuxuu noqon doonaa abal balonaya abal tufaax Somali waxa way tufaax abal tufaax way. tusaalaha saddexaad ee soo qaadanayna wuxuu noqonayaa eggs baranay eggs fish haddaba daawadayaal insha Allah taala muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadanaynay saddexda tusaale ayaynu insha Allah taala ku soo koobi doonaa. saddexda erey qof kasta oo soo qayb af Soomaali ahaan waxay ku noqonayaan iyo English ahaan wax ku noqonayaan. hadhow haddii lagu weydiiyo lagu dhaahdo maxaa lagu yiraahdaa luqadda Ingiriisiga quraanjo maxaa la odhanay ant marka ant baa la yiraahdaa quraanjada. haddii lagu yiraahdo maxaa lagu yiraahdaa tufaaxana maxaa la odhanay muxuu ahaa abal oo ka waayahay. haddii lagu yiraahdo fishka maxaa lagu yiraahdaa Ingiriisina maxaa la odhanay eggs buu noqonaya marka fish. aad baad mahadsantihiin daawadayaal. intayn ku kulmi doono muuqaalkan mid lamid ah waxaan kaga teginaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan subscribe saar channelka iyo like na saar siina share garee si aad muuqaalada u heshana.